بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال meel kasta oo aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo kaga hadli doono dhibaatada qaadka uu leeyahay iyo weliba sida habboon ee la doonayo in lagu joojiyo. waxaa barnaamijka ii daadaheynaya anigoo ah Saadiq Cabdi Gumbe, waxaana idinka soo baahinaynaa xafiiska ETN ee London. waxaana barnaamijka igala qayb geli doona Abukar Cawaale oo loo yaqaano ilka xaseesa, markaasna ah bare wax ka dhiga dalkan Ingiriiska, isla markaasna waxa uu ka mid yahay dadka sida weyn ugu ololeynaya joojinta qaadka, isla markaasna hore u cuni jira qaadka oo dareensan dhibaatada uu leeyahay. waxaa kaloo nagala qayb galaya Sheekh Saciid Sheekh Abukar oo isaguna ah dhaktar si fiican ugu takhasusay arrimaha diinta iyo arrimaha bulshada, isla markaasna ka hadli doona arrimo door ah oo qaadka uu ku saabsan yahay, gaar ahaan dhibaatadiisa iyo weliba sida habboon ee lagu joojin doono iyo qaadku waxa ay diinta islaamka ka qabto. daawadayaal, sidaa ula socotaanba barnaamijkan qaadka kuma soo koobi karna oo keliya in aanu ka hadalno muuqaal, qoraal iyo sawiraba, balse waa barnaamij aada u guda ballaaran. guud ahaana dadka Soomaaliyeed aada iyo aada ay ula ildaran yihiin markaan ka hadlayno gudaha iyo weliba dibadda. gaar ahaan waxaanu barnaamijkan si gaar ah ugu iftiimin doonaa dadka ku dhaqan qurbaha, gaar ahaan wadamada Yurub, gaar ahaan kuwa ay markaasi ay u yihiin ama markaasi aan raadaya contraband oo ka ahayn sida wadamada Ingiriiska iyo Holland. gaar ahaan si gaar ah waxaan u eegi doonaa dalkan Ingiriiska oo dad badan oo Soomaaliyeed ay aada uga cunaan qaadka, isla markaasna dhib weyn uu ku hayo. markaad meelaha qaarkoodna aragtadna aad arkaysid dad badan oo Soomaaliyeed oo waxyeello weyn oo muuqaal ahaan ah u geystay qaadku. isweydiin mayno daawadayaal qaadka gudaha dalka Soomaaliya sida uu ku yahay, iyo dadka Soomaaliyeedna ee gudaha ku dhaqan uu dhibaato weyn uu ku hayo. dakhliga labaad ee markaasi dadku ay ka helaan qaadku yahay midka keliya ay ku nool yihiin marka laga hadlo dhinaca faa'iidada oo u leeyahay dadka Soomaalida oo ay ka ganacsadaan qaarkood, oo hooyooyin badan ay ilmahooda ku korsadaan halka kuwa kalena ay u xoogsi tagaan. si kastaba arrintu ha noqotee, mawduuca aan dib ugu soo noqono oo markaasi si u gudagalna xaaladda dhabta ay ka jirta qaadka. Abukar oo ah sidaan idiin sheegay nin aada u ololeynaya in uu qaadka la joojiyo, waddankan laga joojiyo, isla markaasna muddo dheer ku dhex jiray sidii loo joojin lahaa oo qiyaastii 6 sano ah, ayaa waxa aan rabaa marka hore inaan weydiiyey intaan u gudbin ujeedada barnaamijka, bal sababta qaadka uu joojiyey iyo waxyaabihii ku kalifaado soo koobaya. Abukar, 3 qodob bal nooga sheeg. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق ما صنتهاي هدي أن ساقه حقات يوكل في إن جوجيو سواء هذا حكومة هذا دب نيوم من كمان لاحظه دبعتي سنة صوت طابتي واقرت فاميلي كي يجيب الدمين جاري كالسوني دي قاضي وهالشقيسن واي درينكي يهمي بنا يجرى أو قبصوا النهر النقو ويجور استاجي وقدامبينتينا نفتينا كوين جاري بركي صدق توري اللي يقول نفتي ما نقص أيوة أهيد الحمد لله رب العالمين. وحيابي وقبضنا أبو كر مركا أسلاد هي يعني غيركو بدري كده محوك تسيقاتكو مركا عنتاد واحد دريني شرتي مركا أسي سعتاد دريني شرتي بل ضدك يعني وانا قد عدعي سيدا وح نقطع وكوتا من جاي. سؤال واحد هذا إنك ضدك مقيمين واحد هان قاد كحل عنا والله مرقامة مرقام كديفينيشن كيس هذا أنا أقول تشبيه وحق مرقام هي مرقام كوا همي وبلان وقفك وحياة طلق وتشنيو ودريميو يفكر كتيرة وشلايبة كتيرة يولول أنت أصلاً بسوق كانسر وحاضر مركا أسعتيد أو عنيسيد أو قدنيسيد أيو بلام يا مرقام كاسر مثلا مركا عند تكذب وين ما مركا أنت هذا القاط عن وحقه بلام يو feeling اللي هذا قلقالي oo ku geynaya goobta qaadka oo ku tusaya waxyaalaha kale oo dhan inay sugaan inta qoraxdu ka qabayso inta traffic ka kala degayo feelingkaas wuxuu ku geeyaa meesha golaha lagu cunayo marka tagtidna waxa kugu soo dagaay oo marqaanka loo yaqaanahay waa hamigaas iyo balaankaas iyo tomorrow waan ka sameynaya iyo goolkan aan dhalinaya iyo arrintan sidaan u xalinaya marqaanka lagu sheego waa intaas. baba sawir ka bixi markaad cunaysid oo madashii tagtid oo qaadka bilowdid waxa ku muuqanaya waxa ku muuqanaya cheerful baa tahay ciiskii waa ka kacaya labaxniyood baa tahay
waad kaftamaysaa waad dacayadeynaysaa waa problemkaaga waad dabooshay inta aad meeshaas ku jirtid happy man baa tahay laakiin realitygu waxay ku face garaysaa markaad inta ka luluqatid aad og tahay reerkii oo laga yaabo wiilka jooga goldogob iyo wiilka gabiley jooga iyo wiilka london jooga waa isku feeling kaas waxaa laga yaabaa reerkii inuusan u dhaamin laakiin kan halkan jooga waxaa laga yaabaa reerkii inuusan salisburg u tegin oo aana u gadin marka uu qaadku tufo baa responsibility inuu kusoo baxaysaa markaasuu isweydiiya oo ka shalaaya inuusan cunin abukar dad baa waxay qabaan qaadka inay markay cunayaan ay ka helaan fakar badan iyo inay waxyaabo badan ay ku dhisaan oo ka dhabeeya waxay ku fakarayeen markaasna hela fursado badan oo markaysan qayli aysan helin oo ay ku fakaraan qaadka way jiraan dad fikirkaas aaminsan oo ku ballaangareeya oo wax ku fakara abwaaniin baa jirta heesaha iyo murtada ku qorta way jiraan laakiin anagu waxaan focus garaynayaa percentage ahaan haddii la fiiriyo waxaa laga yaabaa 20% hadday qaadka inta controlaan maalin cunaan oo gabay iyo riwaayad iyo wax ku sameeyaan waxaa laga yaabaa 80% oo kale public intiisi kale inuu dhibaato kale ku hayo oo waxa ay ku ballaangaroonaan oo dhan aysan waxba ka jirin marka hadalkaan wuxuu dhacayaa kan wax yar cuna iyo kan wax badan cuna way kala duwan yihiin waxa fiican kan wax yar cuna balaayadu waa isdhaantaa waxaan aaminsanahay ninka maalin inta cuna bishii waan gartay ama wiigii maalin cuna controla ilaaliya waxaan oran karaa ilaahay ha ka hanuuniyo laakiin waa accept garan karaa waaba cunaya taas macnaheedu maaha qaadka inaad soo dhaweynayso marba haddii cunta in qaadku dhib marba haddii dhib aad ku sheegaysid in la yaro la cuno iyo in badnaan la cuno soo isla meesha tagi mayso lagu qar waan fahmayaa su-aashaada laakiin haddii qaadka aad controlshid oo aad gaadisay waxaad sheegtay adigu aad mention garaysay in wax lagu alifo wax lagu sameeyo dabaa ku shaqeeya ha for that reason xataa haddaan kugu raacaan ku eri weliday ninkii qona waa ka yeeli karaa laakiin 80% oo kale baa ku baaba'san 80%ga marka ka fadli badan 20 qof marka ma la oran karaa marka dhibaatada aad xustay qofka wax yar cunay oo ku dhacaysa eventually in the long markay socoto jidka yar jidka weyn ku ridaa way ku dhacaysaa asagana bal sheekh Saciid aan u soo noqono doctor waa ujeedaa abukar wuxuu leeyahay dhibaato badan buu leeyahay social kana aad badan u taqaanaa dabcan inta aan bardiiniyan aan u aadin malqaadkan iyo waxa ay diintu ka qabto aragtida iyo waxyaabo ka xusay abukar maxaad ka bedeli kartaa maxaad ku diidan kartaa ku raaci kartaa بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين وبعد runtii waxa mawduucan qaadka la yiraahdo waa mawduuc very important ah markii la doonayo in laga hadlano wuxuu u baahan yahay in yani waxa la yiraahdo wadc an-nuqut ala al-huruf in la dhibciyo ayaa loo baahan yahay marka qaadka sidiisa qof muxuu cunaa su-aasha ugu horeysa la isweydiinayo wada qaadka qofka muxuu cunaa qofka bani aadamka sidiisa waxa